السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا اليوم بمشيئة الله حول درس جديد من دروس العربية حول خط النسق. ما أنت وحين هالكن كسو بندقنا حروفتا ألف إلى ياء كتابة حق قرالهان يندوني كسو بندقو حروفتا سو waxay u qaybsantaa laba qaybood qayb laynka dul saaran iyo qayb laynka half iyo half ku ah kuwa laynka dul saaran waa 12 kuwa laynka ka degaana waa 17 xuruftuna guud ahaan arabiga waa 28 xaraf marka 12 baa laynka dul saaran 17 laynka way ka dhacaan aan eegno qaybta hore ee laynka dul saaran واحد الحروف التي تكتب فوق السطر. الحروف التي تكتب فوق سطر. حروفتا lagu qoro sadarka dushiisa waa 11 حرفا 12 حرف weeyaan 11 حرفا 12 حرف weeyaan ثأذن وعلمت وحروف لين كدور ساروية دالكو قابل صوري كسر كاس كسو بلابسة كادت كقارب صوري وين اسكيل على سحالك أبونا سكرة تلو بكسي ولا بدأ وريق كوال فلادا وريق لبعض نوعك والكون والله مد ولالكي طاضة عرفت على كده فهذا ضلال بعض الصمينس قاف وكدوين هاي جروب كلمة جريه قيبت كلمة جريه وقدام باين كاف كي هذا يعني حروف طلاين كدر صار كده هذا لصعة هذا لصعة يلتاس كو لابا صدح بسد الولد إنه ذا كانت كذي كسا طبعا كحرف يا الله يقدر صار قيبتن هوري حندوري هنا كسو قرطان قرال بدن وغيران 5 بيج 6 بيج 7 بيج أنا كسو قرطان دانير الكاس الروح بلعاس وشن بيعود يدول بصدح ذا يدول بنا هالكا وكير كحسن تاي دبعين ليك هالكا دبعين ليك وكير كحسن تاي ألف كوا أشار دير الكيسو شن تاي دبعود يهي 1 2 3 4 5 شن تاي دبعود يهي دير الكيسو حقب لاين كان كم الدقيقة وكأرضي قارب لاين كديجسه بعضنا واساسي اللي هو شن تاع بلع عيد وحاجة بلعة لبا صدح أفر شن حاجة بلعة فقال إنك دون تقولي وين سوتشيت وين تصورين وحخلة إن تصوروس
وكا تأذنا وعلمت تأذنا وعلمت لكن بشرط بعض هي تأذية تأذبا هالكاس أي هل بيحكي حسين لما أنتود سيدان بعضهم شرحي بان تأذنا شرحات يدو نقول ساشان بعود بل عيدو هالقانون اللي بيحكي حسن طاي إيه الله وضع دينا عوسلاك متكستا حكى لك قابني دالكو سيدا هالكا إنوغا موقتا سيرك الكاويان كاللبادنا لين كتصور عين الساعة لبادنا مركا لاسكو إياكو بل ديركودو ولا بدو بعود حقا بلا عنا ولا بدو بعود لكن waxaad samaynaysaa halkaa tanaa soo horeysa dadka qaar baa kaa dambaysiiya kaasii dambaysiiya qalad dadka qaarna kanay soo horeysiiyeen aad iyo aad kala diiday waxa weeyaan agtaad waa muhiim iyadu laynka intaad saa usoo saartid laynka qalinkaaga laynka saar qalinkaaga laynka saa u saar dibi bax saa u rog oo tallaabada koodee qalinkaaga laynka saar dibi bax saa u rog saddex tallaabaad saa u socotay kow laba saddex halkaana welibaad ka dejisay halkaa markaad ka rogasid waxaad iska ilaalisaa inaad saa ka dhigtid oo sidan usoo rogtid hore usii rog hore tallaabada koodaad tallaabada labaadna taa ku soo dar wareegaas tallaabada saddexaadna ushaa ka dhig ushaa halkaad kaga dhufanaysa halkii aad ka bilowday qalinka taasuna waa xiliya yar ubax yar koofiyadda yar noo saarsa koofiyaddaana waa toosinaysaa taa halkaana dib aad uga celinaysa laakiin halkaa waa inaad dhibic ka kacsanaata halkaana waa dhibic ka kacsanaata ushanuna waa inay kasoo horeysaa laba dhibcood in la eg waa inay da'da kasoo horeysatan oo halkaa gam ha ka siinin ee waa inay tanu soo yar horeysaa taa hoose marka dadka qaar baa saa u qora waa bidii ingiriiska ka dhigeen waayo labadaasaan istaabsiisnayn halkaa iyo halkaas waa inay istaabsiisan tahay halkaa iyo halkaasu waa inay istaabsiisan tahay waxaa kale oo iyana jirta da'duna waa lamid fa'da laba dhinac baad ka eegisa dhinacan hore ee madaxa dhinaca hore ee madaxa waa seerkalka weeyaan haddaba shayga lidkiisa lagu gartaa inaad saa ka dhigtaa waa khalad kaas waa khalad kaasuna seerkalkaas waa sax laba khaladka saxa labaad halkaas dalool bay leedahay dalool ayay leedahay halkaas maxay leedahay dalool halkanuna hadda ardayga sidaa ka dhiga ee bilaa dalool ka dhiga waa khalad waa khalday waa inaad dalool yeelata halkaas seerkalna yeelata khaladka saddexaad ee ka dhaca ee ugu dambeeya halkaas waxay leedahay dhuun halkaas ma aragta arday halkaas dhuun bay leedahay dadka qaar bood baa sidaa ka dhiga marka waa anigoo garhkaygan iyo halkaas istaabsiyo sidaa idhaahda marka waxa wey dhuuntii dhexe baa meesha ka baxsay dhuuntii dhexe ayaa meesha ka baxsay marka eeg kan uu khalday waxa ugu dambeeyaana waa madaxan oo laga koonaan dambe oo laga sharaxo sidaas qaar ka soo dhiga way soo jebiyaan ha soo jebinin sidii ba'da saa isaga soo laab laakiin halkaas soo laabin halkaas intaas waa da'di weeyaan waxaan filayaa inaad si fiican ila haysataan khaladkana waxaa lagu gartaa shayga lidkiisa maxaa kan hadduu si sax yahay khalad yahay kiisii saxda meeye kaafka ugu dambeeyay hada kaafka aan eegno waa alif waa ba waa hamse waa xilya waaba intaaba marka maxaa khaldasa ardayda waxay khaldayaan ba'dan ay soo ururinaya inagoo ba'da waa inagii shan dhibcood arday saas ka dhigay saas ka dhigay marka eeg meesha intii ba'da ayaa yar marka spaceka soo yarbax taas waa taa finally ama ugu dambeyntii xarafka aan sharaxayaa waa kaa weeyaan siduu ku yimi saddex arrimoodoo la isku geeyey weeyaan buuggaaga labadiisii lay waa kanba halkaan ka bilaabay start pointiga bartaa dhexe ka bilow si dhankeenu socda sida xaggan usoo soco saa usoo rog markaa taa labadii jeeraan socday ee mar koow iyo mar aan dusha kaga keenay ayaa buurtay intan kale laakiin hal mar baan socday taas waa ta koowaad weeyaan waa inay sidaa usii ridan tahay
oo waxaan u geynayaa plus waxaan u geynayaa inta yar hoose waa 2 waxaan u geynayaa intaas saa u soo wareegsan marka 1 2 3 ama 1 2 3 saddexdaa arrimood la isku geeyay 1 2 3 equal waxay la mid tahay bal mid baan u qaadaya markaan markaa qoraba waan saxanaya aye ka koowaad saasan soo iri marka waan saxanaya xabada waan dhigtay ka labaad waan ku darsaday halkaas ka soo daray waa kan labaad ka labaadna waa ka soo dhamaaday kii saddexaad oo ugu dambeeyay ee sidan ahaa ayaa ka noqonaya laakiin halkaan ka soo dujinaya maya halkaa dhexan soo halkaas soo maraya si aan linka uga digin marka imika markaan qoraya hada saas noqonaysa hada kaas ama aan jeeda kan hada waa kan this waa kan weeye waxaan idin rajaynayaa guul weyn iyo in aad sidaas iyo si kasii fiican u qortaan khadkuna sidiisaba 2 siyood baa lagu bartaa advice kan idin waa 2 siyood koow kathratul mumar isharatul ustaad number 1 isharatul ustaad macalinka inaad la socotid siduu u qorayo waa isharatul ustaad lambarka labaad ama qaabka labaad ee khadka loo barto ama qaacidada labaad aan ku siinaya waxay tahay kathratul mumarasa ku celcelin waayo mahmaha carabiga waxay tirahdaa kullu maa qurir wax kastoo lagu celceliyaa way sugnaanayaan halka ingiriisku ka tirahdo more practice makes perfect marka waxaan idin rajaynayaa guul weyn baan idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullah